dalka hogaamiye madaxweyne ka noqdo oo walaalay taas maxay weydiinaysaa waaba taqaana waaba farmaajeysana madaxweyne kala hadalku waaba bireynayaan farmaajaha dalka ma iimaan karaba xasan alkhayr jaclalay xasan alkhayr taageerta aad ma santa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ku soo dhawaado mar labaad soo noqon kuleeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo sababaha aad ku doorato in mar labaad uu soo laabto farmaajo wax ma noogu sheegi kartaa aniga kollayba reer muqdisho maahi muqdishona ma jooga laakiin waddankan gaalkacyo iyo dhanka koonfur iyo markii la dhaho dhanka bariga aad baa colaad oo dhex taallay maanta nabadeynta meesha dhex taallana asagaa sabab u ah soo dhawaa farmaajo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda soo dhawaada meel walba aad joogteen kuna soo dhawaada Maryan Ladana official maanta barnaamijkeeni Maryan Iimaadeys waxa uu ka shidan yahay magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug haddii aad uga barateen inaan ka soo tabino degmada Galdogob maanta barnaamijkii waa uu soo safray waxa uuna joogaa magaalada gaalkacyo dadweynaha gaalkacyo ayaan su'aalo kala duwan weydiin doonaa marka daawasho wacan fadlan haddii aad tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqato subscribe noo saar sidoo kale like share commentiguna waa noo muhiim soo dhawaada ayaan ilaahay ku soo dhawo Maryan Ladana official adoo magacaaga ku bilaabay su'aalan walaalo ku dhawaay magacayga Cali Baashi waan dhahaa Cali Baashi oo soo dhawow su'aal iska caadi oo dadweynaha magaalada gaalkacyo aan weydiinayno wax koronaysa 10 Oktoobar waxa la iclaamiyay in doorasho wadanka ay ka dhacdo madaxweyne marka yaa jeclaan lahayd adiga Baashi ahaan in dalka madaxweyne ka noqdo aniga waxa jeclaan lahaa dalka madaxweyne ku noqdo madaxweynaha hadda Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hadda xilka haya maxaa Cabdullaahi Farmaajo sababaha ku dooratay maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu dalka madaxweyne ka noqdo mar labaad wax ma noogu sheegi karaa ninka nin wadaniga weeye waa nin jecel sheeg inuu wadanka horumar gaaro calooshu shaqeysta ma ahan wadanka horumar aad mar daba soo laabto waxa filayaa inuu ii sheeg dawlad dhala doonto wadanka ii sheeg ka noqon doonto waxaan rajaynayaa inuu soo laabto doorasho qof iyo cod inuu ka dhigi doono doorasho soo socota insha Allah aad baa maas ku soo dhawo Maryan Ladana official adoo magacaaga ku bilaabay su'aalan magacayga waxa la Abqaadir Cabdullaahi Cabdiqaadir soo dhawow waxaan ku weydiinaynaa su'aal iska caadi ah oo dadweynaha magaalada gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa yaa jeclaan lahayd 10 Oktoobar ee doorashada loo iclaamiyay inuu wadanka madaxweyne ka noqdo wallahi hadda waxaan jeclaan lahay in la siiyo madaxweyne Xasan Maxamuud in la siiyo jeclaan lahay Xasan Maxamuud sababaha ku dooratay Xasan Maxamuud inuu mar labaad madaxweyne noqdo waa nin muwaadin ah waa nin oo wadani ah waa nin wax qabad ah waa nin wax soo karo waay hadda waxaan jeclahay asiin oo la siiyo waa jeclahay aad baa maasanta wala soo dhawo Maryan Ladana official adoo magacaaga ku bilaabay sabaay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفرتون عبد العزيز حرسي فرتون أي سود سؤال إسكعادي كويديننا يا شعلان لهيد السنة صوص سعودة أما 10 أكتوبر لو إعلامية وضعنا دور شكل عضين ومدحوينا كنقطة ذلك محمد عبد الله فرماجو سببت أكو دورتين مرة بعد مدحوينا صون نقطة محمد شيء كده cadaaladda iyo waxyaabaha badan oo horumarka ay sameeyay ciidamada badan oo tababaray baan ku doortaa aad baa maasanta fartuunay ayo wala macaa dhawaay magacayna Yaxya Maxamed yaxya soo dhawow waxaan ku weydiinaynaa su'aalo iska caadi ah oo dadweynaha magaalada gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa 10 Oktoobar waxa la iclaamiyay in wadanka doorasho ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd in uu madaxweyne ka noqdo dalka waxaan jeclaan lahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu madaxweyne ka noqdo dalka madaxweynaha hadda xilka haya sababaha ku dooratay in madaxweynaha soo laabto wax ma noogu sheegi haye dalka wax badan ka bedelay aad iyo dalka ciidamo u sameeyay dad badan wax badan ku kordhiyay dalka marka madaxweyne Farmaajo jeclaan lahaa Farmaajo jeclaan soo noqdo aad baa maasanta Maryan Ladana official baayo adoo magacaaga ku bilaabay abay magacayga waa Raxmaan Nur Raxmaan soo dhawow waxaan ku weydiinaynaa su'aalo iska caadi ah oo dadweynaha magaalada gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa 10 Oktoobar waxa la iclaamiyay in wadanka doorasho ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd in uu dalka madaxweyne ka noqdo بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورحمن نور جامع waxaan jeclaan lahaa inuu dalka madaxweyne ka noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hadda xilka haya madaxweynaha hadda xilka haya wax ma nooga sheegi kartaa sababaha ku jeclaatay in madaxweynaha hadda soo laabto wallahi wax badan baan ku taageersanahay oo ah ma aragtay inuu wadanka horumar gaarsiiyay inuu caalamka oo dhan wadankeena maanta aqoonsan yahay oo dhibaatadiina haysay oo dhan inay ka baxeen la soo celiyay dadka tahriibayaashii badnaayo socon jiray hadda joogsadeen alxamdulillah ku faraxsanahay anigana ma sha Allah waxaan ahay dadka ma aragtay wadanka aad u daneeyo ma aragtay inuu horumar gaaro marka waxaa jeclahay inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
soo noqon doona insha Allah. aad baa maasantaa bay waa ku dhawahay magacayga waa asmo weeye waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Galmudug asmo soo dhawow su'aal iska caadiya oo magaalada Gaalkacyo dadweynaheeda aan weydiinayno waxa ku oranaysaa 10 Oktoobar waxa la ilaamiyay inay wadanka doorasho ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd in uu dalka hogaamiyo oo madaxweyne ka noqdo waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweyne farmaajo dib u soo noqdo dib u soo insha Allah sababaha ku doorato in madaxweynaha dib u soo laabto wax ma nooga sheegi karaa madaxweynaha farmaajo waxa madaxweyne karti iyo hufnaan u leh howlaha uu qabanayo shaqooyinka hore uu soo qabtana in badan waxay ahayd shaqooyin aad u wanaagsan marka saal ahaanteedu wixii anfacay madaxweynahaas waxaan jeclaan lahaa inuu dib u soo noqdo aad baa maasantaa ku soo dhawow Maryam ladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid magacayda waxa weeye Abdirxiin Mahad waxa ku noolahay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Galmudug soo dhawow Abdirxiin su'aal iska caadi ah oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinanay labada dhinac waxay ku leedahay 10 Oktoobar waxa la ilaamiyay in wadanka doorasho ka dhacdo marka adiga yaa jeclaan lahayd inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Xasan Alkhayr jeclaan lahayd Xasan Alkhayr taageerta aad baa maasantaa soo dhawow Maryam ladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal waan dhawahay magacayga Mushtaaq Cumar Cabdisaaq soo dhawow walaal su'aal iska caadi ah ku weydiinaynaa oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa 10 Oktoobar yaa jeclaan lahayd in dalka madaxweyne ka noqdo waxaan jeclaan lahaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo in soo laabto ma nooga sheegi kartaa sababaha ku dooratay Cabdullaahi Farmaajo waa nin daacad oo dalka wax u qabtay shacabkuna si loo maray wada taageersan yihiin ma sha Allah aad baa maasantaa ladan official walaal adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal waa dhawahay magacayga waxa la Cali Salaam Shire cali oo soo dhawow barnaamijka see aragtaa horte walaal barnaamijkan xaq barka ma hayo laakiin aad iyo aad kale waa barnaamij dhalinyaro wada waan soo dhaweynayaa waa tahay cali waxaan ku weydiinaynaa 10 Oktoobar waxa la ilaamiyay in wadanka doorasho ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd inuu madaxweyne ka noqdo dalka wallaahi kale dalka Soomaaliya markii loo fiirsho 70% waa dhalinyaro kale madax haddaan soo aragnay waxaan ila firfircoon mudane Xasan Cali Khayr waaye dhalinyarada garamo badan buu dhisay waxyaabo badan uu qabtay marka soo dhawaana xalana soo dhaw soo baxmaan laan Xasan Cali Khayr aad baa maasantaa walaal waan dhawahay Maryam Cabdisaaq Maryam horta barnaamijkan inaan Gaalkacyo ku qabano see aragtaa maanta ma sha Allah barnaamij wanaagsan oo soo dhaweynaya Gaalkacyo ku soo dhaweynaya Maryam waxaan ku weydiinaynaa su'aal iska fudud ama wax iska caadi ah 10 Oktoobar 2021 waxa la ilaamiyay in wadanka doorasho ay ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd in wadanka hogaamiyo oo madaxweyne ka noqdo insha Allah waxaan jeclaan lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay insha Allah noo soo noqo madaxweynaha hadda xilka haya aad u maasantaa ku soo dhawow Maryam ladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal magacaygu waa Muxudiin Maxamed Aadan Ali muxiidiin oo soo dhawow waxaan ku weydiinaynaa su'aal iska caadi ah oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa 10 Oktoobar waxa loo ilaamiyay wadanka inay doorasho madaxweyne ka dhacdo marka adiga yaa jeclaan lahayd inuu madaxweyne ka noqdo wadankan Xasan Cali Khayr sababaha ku dooratay macnaha waxaan ku doortay anshax wanaagiisa iyo dawlad wanaagiisa aad iyo aad aan ku doortay aad u maasantaa official barnaamijka Maryam barnaamijkan mala socotaa ka mid tahay taageerayaasha barnaamijka waa daawadaa Gaalkacyo barnaamijka maanta inaan ka qaban see aragtaa sharaf iyo waxna tahay farxadena tahay ka soo dhaxo aad u maasan tahay Maryam ladan official wax saa kuma weydiinayo kaliya waxaan ku weydiinaynaa 10 Oktoobar 2021 waxa la ilaamiyay doorasho in wadanka ka dhacdo yaa jeclaan lahayd marka inuu dalka hogaamiyo madaxweynahan waxa jeclaan lahaa madaxweynaha hadda hay farmaajo sababta noo raacay oo jeclaan dawladnimo tusay aad u maasantahay ku soo dhawow Maryam ladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal magacayga Jeeri Aadan Xasan Jeeniyo soo dhawow su'aal iska caadi ah ku weydiinaynaa 10 Oktoobar waxa la ilaamiyay wadanka inay doorasho ka dhacdo yaa jeclaan lahayd inuu dalka hogaamiyo madaxweyne ka noqdo oo walaalay taas maxay weydiinaysaa anigu waaba taqaana waaba farmaajeysanahay madaxweyne kale hadaalku waaba bireynayaan farmaajo ahayn dalka maba imaan karaba aad iyo aad waka farmaajeysanahay farmaajana taageera farmaajana waxa weeye dalka maamulaya waa kama dega weeye aad u maasantahay ayo walaal sidoo ku soo dhawow Maryam ladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid baa Yaasmiin Axmed Usmaan Yaasmiin soo dhawow su'aal iska caadi ah ku weydiinaynaa waxa ku oranaysaa
tobanka Oktoobar waxaa la iclaamiyay in dalka ay doorasho ka dhacdo madaxweyne yaa jeclaan lahayd marka inuu madaxweyne ka noqdo dalka madaxweynaha hadda xilka haya maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jeclaan lahayd maxaa ku dooratay madaxweyne daacad weeyaan aad baa maasantaa baay soo dhawo mar yaladan official walaal adoo magacaaga ku bilaabaysid bismillaahi raxmaani raxiim waan ku soo dhawaaday boqolkiiba boqol waan islaam aad baa kaaga qaadnay walaal su'aal iska caadi ah ku weydiinaynaa waxa ku oranaysa su'aashaasi tobanka Oktoobar yaa jeclaan lahayd dalka inuu madaxweyne ka noqdo tobanka Oktoobar macnaha tobanka Oktoobar waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweyne ka noqdo kii hore ka ahaa kii hadda ka ahaa madaxweyne Farmaajo inuu ku soo noqdo xilka qabto aad iyo aad maxaa waxyaabaha ku dooratay madaxweyne Farmaajo waxaan ku doortay dadka muslimka ugu roona maxaa kale uu ku fiicnaa dawladdiisa dalkiisa si wanaagsan ayuu yahay farmaajo jeclaan lahaa boqolkiiba boqol waan salaamayaa aad baa maasan dhawo mar ladan official adigoo magacaaga ku bilaabaysaa Faadumo soo dhawo waxaan ku weydiinaynaa su'aal iska caadi ah oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa tobanka Oktoobar waxaa la iclaamiyay inay wadanka doorasho madaxweyne ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd inuu wadanka madaxweyne ka noqdo waxaan jeclaan lahaa madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu ka noqdo farmaajo jeclaan in mar labaad soo noqdo maxaa ku dooratay sababaha inuu soo laabto wadankii dadkii uu isku daray xorriyad sheeg dadkii aan qabiil aansan lahayn oo si caadi ah uga noqday madaxweyne saas aad baa maasantaa walaal ku soo dhawo mar yaladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid magaca Cabdullaahi Bashir Cabdullaahi ku magac dheer libax soo dhawo barnaamijkan horta su'aal isweydiinta inaad magaalada Gaalkacyo keena see u aragtaa waa iska yar caadiyo يا برنامج ككلي ما كوك لا تسوريجي هذيات وايا اللي بحوا وحن كويدين الناس سؤال إسك عادية تصح كورنسا طبعاً أكتوبر وحى الإعلامية وذكر دار شكل عضو مركيات علان لهيد وضن كأنه مدحوينا كان نقده أو جامي والله واحد على يوم مدحوينا في ماتش سياسة عضو كله بيانا بتقدر إنه ما شنو صار أبتجعلنا وصلنا إن شاء الله أدو ما سنت يا وين عرض كله أريده أدو أباي مرة لذن أفشيال أدو مقعد كبلا بيسيد أباي وان كله هاي مقعد شكر فارح محمود شكر يا سود وحن كويدين الناس سؤال إسك عادية ودوينها مقالة Gaalkacyo وديرنا سؤال شوحي كورونا الساعة هدي طبعاً أكتوبر وحل إعلامي إنه دور شو ودن كدعوه مركيات على الله هاي إنه مدحوينا دور كنقضه فرماجو عبدالله فرماجو إنه لو عليه maxaa sababaha ku dooratay wax looga sheegay inuu dib u soo laabto madaxweynaha waxaan ku doortay wanaagu falayba haddana cid kale falayn baan maleynay simaan doonin aad baa maasantaa sidoo kale maray ladan official adoo magacaaga ku bilaabis walaal bismillaah magacaygu aadan cali aadan oo soo dhawo waxaan ku weydiinaynaa su'aal iska caadi ah oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa yaa jeclaan lahayd 10 Oktoobar inuu dalka madaxweyne ka noqdo waxaan jeclaan lahaa farmaajo Cabdullaahi Farmaajo sababaha ku dooratay inuu marlabaad soo laabto xinooga sheeg waxaan ku doortay howlkarnimadiisa iyo waa u qalmaa aad baa maasantahay dhawo maray ladan official walaal adoo magacaaga ku bilaabis magacayga Mawlid maxaa warsan mawlidow soo dhawo waxaan ku weydiinaynaa su'aal iska caadi ah oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa 10 Oktoobar waxaa la iclaamiyay inay wadanka doorasho ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd in dalka madaxweyne ka noqdo حسن على غير حسن على غير تاغيرتا سببها ku dooratay inuu madaxweyne noqdo xasan cali qeyr dalkan waxa uu qabtaa wax badan aad iyo waka saacayaal isku taageera aad baa maasantahay hay daawadayaal wali waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijkeenii Maryan iyo Maadeys su'aalaha aan ku weydiinanay dadweynaha magaalada Gaalkacyo imika waxaan taaganahay bartamaha magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug ama dhanka koonfureed sida hadba u taqaaniin ay soo dhawow ku soo dhawow Maryan ladan official adoo magacaaga walaal waa dhawahay aniga magacayga waa Faaiisa Sheekh Daahir magaalada Gaalkacyo way meeshan waa dhanka Galmudug Faaiisa soo dhawow 10 Oktoobar waxaa la iclaamiyay in ay wadanka doorasho ka dhacdo adoo kaamirada fiirinaysid marka ayaa jeclaan lahayd in wadanka madaxweyne ka noqdo waxaa jeclaan lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku soo dhawaado mar labaad soo noqon ku leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababaha aad ku doorato in mar labaad uu soo laabto Farmaajo wax ma noogu sheegi kartaa aniga kulay reer Muqdisho maahay Muqdishona ma jooga laakiin wadankan Gaalkacyo iyo dhanka koonfur iyo markii la dhaho dhanka bariga
aad baa colaad oo dhex taalay maanta nabadeynta meesha dhex taalana asaga sabab u ah soo dhawaa farmaajo aad ma santaa ladan official adoo magacaaga ku bilaabay Soomaaliya walaalo ku dhawahay magacayga waa Saciid Cabdulqaadir Cali Saciidow soo dhawow su'aalo iska caadiya oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo aan weydiinayno waxay ku oranaysaa 10 Oktoobar waxaa la cilaamiyay in ay wadanka doorasho ka dhacdo marka yaa jeclaan lahayd in uu wadanka madaxweyne ka noqdo insha Allah wax jeclaa inuu noqdo farmaajo madaxweynaha hadda xilka haya wax nagu sheegi kartaa sababta ku dooratay in mar labaad soo laabto madaxweynaha hadda walaa madaxweyne daacada dalkiisa iyo diintiisa naftiisa u horeeyay aad baa maasantaa walaal taayda wadayaal intaas ayaanu ku soo afmeerinaa barnaamijkeennii Maryan iyo Maadeys oo galabta aan kaga soo tubinaynay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug anagoo ka soo tubinaynay labada qaybood ee magaaladu ay ka kooban tahay dhanka koonfureed ee Galmudug iyo sidoo kale dhanka Puntland adigoo soo daawaday sida ay uga falceliyeen su'aalaha aan weydiinay dadweynaha magaalada Gaalkacyo mar labaad waxaan leenahay soo dhawaada fadlan haddii ay taamar kugu horeysay ee channelka soo boqoto subscribe saar like share sidoo kalena commentigu waa noo muhiim markan waxaan leenahay soo dhawaada